xildhibaanada shalay la dhaariyay xildhibaanada marka shalay la dhaariyay baan rabaa inaan kelmad meeshan uga diro laba kelmadood baan leeyahay mid waxay ku saabsan tahay dhaqanka iyo diinta aynu aaminsanna midna waxay ku saabsan tahay dhaartii ay dhaarteen dhaqankii iyo diinta aynu aaminsannahay waxa ay sheegayaan qofka mar walba oo uu xil usoo kordho waxa usoo kordhay inuusan ahayn privilege waxa usoo kordhay inaysan ahayn faa'iido waxa usoo kordhay inaysan ahayn mansab iyo munaasabad ka wanaagsan tiisii hore laakiin waxa usoo kordhay ay tahay culays iyo su-aal iyo ammaano la qaado oo ilaahayna uu kala xisaabtami doono annagana aan ku eegayno saa darteed xildhibaan baad noqotay brotocool baad yeelanaysaa albaabada waa lagaa furayaa safaraad aadaysaa shirar baad ka qayb gelaysaa maya dhinaca kale waxa weeye ummatu muxamedin sala allahu calayhi wasalam oo soomaali la yidhaahdo xilkeeda 100,000 kun oo ka mid ah dhabarkaaga saaran 15 milyan markaana oo 320 iyo dhowr xildhibaan ay codkeena ku hadlayaan qofkiiba meeqo cod buu u dhigmaa intaasaa qof walba dhabarka u saaran oo dembigoodii uu ka mid yahay dayacooda uu ka mid yahay dhibaatadooda ay ka mid tahay daryeel xumadooda ay ka mid tahay cumar ibnu khataab muxuu dhihi jiray radi allahu canhu intuu ooyuu dhihi jiray basra hasha ku turanturoonaysa waxaan ka baqayaa inuu ilaahay iga waraysto oo uu yidhaahda maxaad jidka ugu hagaajin weyday walaalayaal haddaad jid ku dhistaan mas-uuliyaddiina xilkii waad gudateen haddaad iskuulle ku dhistaan xilkii waad gudateen haddaad jaamicaad ku furtaan xilkii waad gudateen isu daneeya haddii aad doontaanoo haddaad soo saartaan xeer idinka idin protecti garaynaya inaad nolol wanaagsan ku noolataan idinkoo dalkiina joogo oon dal kale aanan aadin waxaad qortaan xildhibaanada maanta jooga xilka ha hayaan ama ha ka tagaan inta noloshooda ka dhiban qof walba bushaarka intaasuu qaadanaya haddii laydinka yeelo oo soomaali ku heshiiso xalaalun calaykum waa laydin ogolya laakiin intaad intaas soo dhaaftaan oo wax gacantiina ku jira aad gacan dhaaftaan ha isku dayina waxaan gacantiina ku jirin oo ka dhaxeeya dadkaa gaajaysan oo qaarkood banaanka masaajidka ay ku tuugsanayaan qaarna dayacan ognahay ay ku nool yihiin qaarna ay shabaab haystaan mustaqbalkoodii inaad iibsataan ama mustaqbalkoodii inaad dhacdaan oo dibadda ula dhooftaan arrintaa iyada walaalayaal ha isku dayina waxaa laydinka rabaa marba haddii qalinka uu idinku dhacay oo aad maanta dhaarateen beritoole go-aankaad u qaadanaysaan ummadda soomaaliyeed inuu noqdo go-aan aakhira idin bixinaya adduunkana sharaf iyo magac idin soo jiidaya waxaad go-aan ka qaadanaysaan yaa madaxweyne noqonaya yaa ra-iisul wasaare noqonaya yaa wasiirro noqonaya ummaddan dhiiggeedii baad go-aan ka qaadanaysaan mustaqbalkii iyo masiirkii baad go-aan ka qaadanaysaan ajyaasha soo socda wax saameynayaad go-aan ka qaadanaysaan go-aanka ummatu muxamedin aad u qaadanaysaan ha noqdo go-aan idin bixiya beritoole cidna ha ugu danayninee lafihiina ku danaysta waxaad awoodi karaysaan inaad beritoole soo xushaan qofka soomaaliya berri hagi doona madaxweynaha noqon doona 4 sano oo soo socoto xilkaa ladiin dhiibay lacag ma jooga aslanna xaq baad ula haydeen nin idinku abaal sheegan kara ma jiro nin idin soo saaray iyo nin laaluush idinka bixiyey iyo nin idin soo baritaaray maya ma soo baxdeen ummaddaasuu ka dhexeeya xilka aadna u haysaan kaa isagaa ummaddu ka mid yahay amar gaara idinkuma leh wax xisbi loogu adeega ma aha danayse wax loogu adeega ma aha dhaartii uu dhaartay nin isagu buriyey wax loogu daneeyo ma aha waa wax loogu daneeyo ajyaasha iyo mustaqbalka iyo waxa soo socda wey saa darteed markaad keligaa meesha joogtid oo aad korosgaraynaysid warqadda waxa aad la macaamilayso waa mustaqbalkaagii iyo kan ubadkaagii iyo kan waalidkaa iyo kan walaalaha iyo keenno idil in marka hal nin uu ka qiimo bato oo danaysto oo tiisa raba arrintaa iyada allana waa idinka waraysanayaa aakharana xisaab baa taalla adduunka inta la joogana haddii ummaddu waxbay warin doontaa waana markhaatiga ilaahi subxaanahu wa tacaala marka mas-uuliyaadku waxay la cuslaadaan hadba qofka xilkiisi iyo imkaaniyaadkiisa intay dhan yihiin imkaaniyaadkiina hadday gaaraan soomaali inaad go-aan u gaadhaan waxaad ugu go-aan gaaraysaan waa inuu noqdaa wax dhaafsiisan hunguri arsaaqda ilaahay baa qoray waayi maysid kuwa aadan ka warqabin baa ilaahay masruufaa badaha guntooda kuwa ku jiraa ilaahay masruufaa tan iyo haddaba waxaad kusoo gaarteen nolol mar aadan dayacnayn heerkana allah kusoo gaarsiiyey allihii kusoo gaarsiiyeyna waa joogaa isagaana ku masruufaya yaysan marka iishuugu uusan noqonin in ummadda mustaqbalkeeda iyo farxaddeeda la dhaafsado lacag iyo dhaqaale oo meelay ku dhammaata aan lahayn oo iska iimaan la-aana walaalayaal waxaan idiin sheegayaa oo wallaahi ah oon magacyada ilaahay idinku dhaaranayaa ma jiro dal dowladnimadiisa ay ku dhisantay laaluush oo liibaan ku gaaray
laba mid weeyaan marka in la kala doorto dowladnimada noo qalanta iyo in la doorto laaluushka iyo waxa wasakda ah ee hadda maanta lagu jiro go-aanka idinkaa iska leh idinkaana isu goynaya annagana waxaad goysaan baab waxa weeye lagu qasban yahay laakiin sidan ahaan mayse ummaddan rabbi bay leedahay subxaanahu wa tacaala qodobka labaad waxa uu yahay dhaartaad dhaarateen markaad dhaaranayseen inta wax kasta oo kale laisla soo dhaafay oo lais aamini waayey baa ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala meesha la keenay markii meesha la keenay baa waxaa la yidhi noogu dhaartay kitaabka isaga waxaad tidhaahdeen ilaahay magaciisa nagu aamina dhaartu taasay ka dhiganta waa maalin ramadaan ilaahay magaciisii aad ku dhaarateen waan idinku aaminaynaa haddaad dhaarta ka baxdaan annaga noogama aadan bixine ilaahay baad uga baxdaan annaga noogamaydaan bixine allaad uga baxdeen naftiinaadna uga baxdeen faman nakatha fa inamaa yankuthu calaa nafsih waman awfaa bima caahada calayhi allah fasayu'tiihi ajran cadiima qofkii dhaarta buriyaa ballanka buriyaa waxa la isku ogyahay buriyaa naftiisa ayuu ku ballan furay cidna wax ma yeelin isagaa alkhaasiru lawxad ah qofkii ballanta furiyey iyo ballankii ilaahay uu la galayna ilaahay ajar weyn buu siinhayaa kii ballanta buriya soo maaha cadaab weyn baa ilahay siinhaya subxaanahu wa tacaala axaadiida nabigana saasay tilmaamaysa salawatu llahi wasalaamu caleyh marka dhaartaad dhaarateen waxay tahay walaalayaalow oo walaalayaalow xildhibaanow waxa ay tahay ilaahayow magacaagaa nalagu aaminay magacaagaanan ku shaqaysanaynaa ee magaca ilaahay ummatu maxamed inaad ku sirtaan maskaxdiina yaanay kusoo dhicin maanta haddaad wax qabanaysaan magaca ilaahay ummadda islaamka ahe la yidhaahdo ummatu moxamed ee soomaaliya u heliya idinka idinla taallaa nin jeclaysi ma aha wallahu lmustacaan qabyaalad ma aha war waa ceebaysannahay billahi calaykum war waa ceebaysanna war caalamkii waxaan u noqonnay sumbuulka iyo halbeega ceebtaan u noqonnay ilaa iyo intee baa lagu jirayaa goormuu soo baxayaa mid loo aayo oo lagu bulaalo oo la yidhaahdo marxaladdan in laga gudbo intan in lagu joojiyo weeyaan goormuu soo baxaya idinkaan rajaynayna inuu idinka soo dhexbaxo biidn illahi tacaala halkan aad ku darsanaysaan cidda aad dooranaysaan madaxweyne aad dooranaysaan waa inuu noqdaa qof ammaano leh waayo dalka amni daraa ka jirta qofaan ammaano lahayna amni ma keeni karo taa qabsada isaga hadduu dayacan yahay oo uu farihiisa kala xadayo oo xoolihii soomaali magaceeda ku yimid ee weliba aanan gudahooda badankiisa aan ka soo bixin uu soomaali inuu ku laayo u isticmaalayo ama ku dibindeeyo ama kursiga ku haysto ama kursi ku dhaxo ama reer ku turantureeyo kaa isagaa maaha kii amnigaaga sugi lahaa waana sababta iyo sirta ka dambaysa intaasoo sano 2,000 oo wiil oo cisaabo mujrimo ah in loo maara waayo oo salaadii laga tukan waayo oo jumci iyo jamaacadkii lala soo oogi aadi waayo oo la yidhaahdo 4 sano oo kasta oo xilli madaxweyne ah in la yidhahdo waxaa maqan dastuurkii baa qabyo ah diiwaangelintii baa maqan doorasho qof iyo cod waa la gaari waayey ammaankii waa la sugi waayey qabaa'ilkii way ismagaciisiyeysan yihiin limaada khaa'in baad doorateen khaa'inna ma raba intaa inay hagaagto mushkilaadkan haysa maxaa ka mid a maxkamadda suuriya maa la dhiso baa laleeyihi ninkii maxkamadda dastuuriga ahayd dhisi lahaa hadduu aaminsan yahay maxkamadda haddaad dhisto adigay xilka kaa qaadi doontaa miyuu kuu dhisayaa maya saa darteed waa khaa'in waxaa la leeyahay ciidamadii baa waxaleeyey ciidamadii markay waxaleeyeen maxay u haleeyeen ciidamo tayo leh tayaday ciidanka u baahnaayeen lama siinin tabartay u baahnaayeen lama gelinin ayagoo naftooda huraya oo dhimanaya oo ciridda taagan oo culayska o dhan uu ku dhacayo baa haddana aanan looga faa'iideynaynin timekooda maxaa soo baxaya marka ciidamo uu isleeyahay waad ku dhex noolaan kartaa ayaa soo baxaya ko markay soo baxaan taa iyada ah dayicu mushkilada oo dhan waxay taabanaysaa mujtamacii bay taabanaysaa mujtamaci haddii ciidamo la dhiso oo boolis fiican la dhiso wuxuu isleeyahay adigaa tuugo waa lagu soo qabanaya waa lagu xirayaa maxkamad fiican haddii uu dhiso uu geeyo qudaad wan wanaagsan wuxuu leeyahay maxkamadda marka la saaro adigaa jeelka ku waaraya war hal qof looma shaqayn karo oo nin khaa'inahoo ilaahay iyo islaamka ka furtay danihiisa soomaali inay maanta iyo berriba u sacabtunto ayaguna ay dayac ku noolaadaan wax la awoodi karaya wax lagu noolaan kara maha waanana deeqi leedahay arrinta iyada waxaa loo baahan yahay in arrimaha noocaasa tallaabo looga qaado 13 wiil baa sabab u ahaa baa la yidhahdaa xorriyada maanta aan ku naaloonayna ilahay subxana wa tacala ha u naxariisto oo qabrigooda rabbi ha u waasiciyo war idinkoo intaa ka badan oo ka aqoon sarreeya oo ka da'weyn oo ka khibrad badan oo soo arkay wixii dayac ahaa oo ku dhex nool inaad waxaas inay wax iska bedelaan aad ka shaqaysaan baan maanta marti idinka nahay bacd allah taa waa taa weeye walaalayaal inama deeqdo
inaan dalka ka shaqayno caa'ilaadkeennana ay dibadda ku nool yihiin limaada wixii ay dalka ugu noolaan lahaayeen idinkaa u diiday saa darteed meeshii samaysatay waxay u baahnaayeen baan geynaynaa aniga soo maaha kuwa baan la halgamaya warkaa ina bixin mahayo waxaan u baahan nahay dib u soo noqosho dalkii oo lagu wada noolaado cuquushii soomaaliya oo laga wada faa'iidaysto kuwa qurbaha joogo khibaraadka iyo ka faa'iiday cilmiga intay waddanka yimaadaan meeshay waddamo kale u faa'iideyn lahaayeen ay juhdigooda meeshan geliyaan laakiin haddii uu ka baqaayo hadduu hebel yimaado anuu kursiga iga qaadaya saa darteed siuusan u imaanin tanaan walaaqayaa meesha waxa yaalla waxayna anfacaya ma aha